maanta oo ay taariikhdu tahay 2 January 2025 waxaa soo gabagaboobay shirweynaha beelweynta Warsangeli oo looga akhrisanayo colaadda ka oogan degmada Ceelgaabo kaasoo ka qabsoomay magaalada Ceelbuur gobolka Sanaag shirkaas oo ku baaqay suldaanka guud ee beelaha Warsangeli Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan ayna soo ajiibeen dhammaan guurtida dhallinyarada qurbajoodka waxgaradka beesha dhammaantood haddaba gobolka Sanaag oo dadkiisu dheeyahay 55,000 oo kiiloomitir iskuweer 35,000 oo kiiloomitir iskuweer oo ka mid ah waxaa dega beelweynta Warsangeli halka degmada Ceelgaabo ay wada degaan 4 beelood 4 degmo ee soo haray 3 ka mid ah waxaa gaar u leh beelaha Warsangeli intaas kadib colaadihii ka aloosmay dalka Soomaaliya iyo burburkii dawladda dhexe November 1993 afartii beelood ee ku sugnaa degmada Ceelgaabo waxay ku nabdeen heshiis ka madax bannaan nidaam maamul oo ah nidaam qabiil wada deganaansho ah nasiib darro 27 November 2024 waxaa magaalada Ceelgaabo ka qarxay duulaan qorshaysnaa muddo dheer laga soo shaqaynayay oo lala beegsaday beelaha Harti Waqooyi kaas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac boob hantiyeed barakac iyo barokicin dhammaan dadkii ku artirsanayay beelaha Hartiyeed duulaankaas waxaa ka horkacayay maamulka iyo ciidamada Somaliland oo ay weheliyaan maleeshiyad beeleed ku abtirsada SSB GT6 iyo wax la mid ah oo ciidamadoodii ay ku sheegteen maamulka qaar ku sheegteen dhinac dagaalamayay ugu dambayn shirku markii uu si qoto dheer u falanqadeeyay gobolfalada iyo waxyeelada ka dhalatay falalka guracan ee lagula kacay qaybo ka mid ah bulshada markuu si mug iyo wadatashi leh uga arrinsaday dhibaatada taagan shirku wuxuu go'aamiyey qodobada soo socda qodobka koowaad shirku wuxuu guddoonsaday in ku dhaqanka shariicadda islaamka ay u tahay marjac wax kasta oo laga wada hadlayo isla markaana shirku wuxuu go'aamiyey midnimada beelaha Warsangeli in ay tahay muqaddis qodobka labaad laga bilaabo maanta shirku wuxuu caddaynayaa in beelaha Isaaq ay buriyeen heshiiskii nabadda 11 bishii 11 1993 ee 4 beeloodka ee lagu wada deganaa magaalada Ceelgaabo gebi ahaanba heshiiskaasu waa burburay sidii loogu heshiiyey maadaama ay ka tallaabeen gebi ahaanba heshiiskaasu waa burburay qodobka saddexaad shirku wuxuu go'aamiyey in si buuxda oo mug leh loo difaaco dadka deegaanka iyo hantida beelweynta Warsangeli gaar ahaan degmada Ceelgaabo qodobka afraad shirku wuxuu magacaabay guddi ka kooban 35 xubnood oo u xilsaaran maaraynta iyo fulinta qodobka saddexaad oo qodobka aan kor ku soo sheegay oo difaaca dalka ah qodobka shanaad shirku wuxuu caddaynayaa dhammaan waxyeelooyinkii ka dhashay gobolfalladii maamulkii Somaliland iyo maleeshiyaadkiisii beelaysnaa ku beegsadeen bulshadii ka soo jeeday beelaha Harti inay iyagu qaadanayaan mas'uuliyadda cawaaqibxumada ka dhalata arrintaas qodobka lixaad shirku wuxuu ku baaqayaa beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka bini'aadanimo in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan bulshada laga soo barakiciyey deegaanadoodii iyaga oo xilligan ku sugan duruufo adag hoy la'aan cunno la'aan biyo la'aan qodobka toddobaad ugu dambayn
suldaanka guud ee beelaha warsageli suldaan siciid suldaan cabdisalaan wuxuu ku baaqay in 15 February 2025 shirweyne isugu yimaadaan beelweynta warsageli magaalada Ceebo kaasoo lagaga arsanayo aayahooda gabagabadii shirka qodobka ugu dambeeya ee 7 sidii horeba looga saqariyay wax badan baa warsageli yiri baa shir la qabto oo bana ayna suurtoobin maanta shirka lagu baaqay waxa la doonayaa dadka diasporada oo qurbaha u badan oo Facebook iyo WhatsApp ma saa la yeelo waxaan ka codsanaynaa inay si mugle iyo miisaan leh uga soo qayb galaan kuwa dalka joogan meel kasta ay jiraan inay shirka isugu yimaadaan lagaga tashanayo aayahooda xaaladaha dalka ka taagan warmurtiyeedkii intaasuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.